waxaan maanta ku darayaa xogaayo kale marka u horeysa waxaan war yar idinka sheegayaa waxa weeye safarkii madaxweynaha dowladda Puntland wafdigu hogaaminayay anigoo senator ahna aan ka qayb galay oo aan ku tagnay Jubbaland waan ku caleema saarnay madaxweyne Axmed Maxamed Islaan wuxuu ahaa waajibna saaran oo dastuuri buu ahaa waxaana weeye doorashada halkaa ka dhacday inaan aqoonsano oo aan tagno kaliya ma ahayn waxaa tegey senatoriyaal badan oo hogaaminayay gudoomiye ku-xigeenka koowaad oo aqalka sare waxaa tegey madaxweynayaashii hore oo ka qayb qaatay dhismaha dowladihii maamuladii nidaamka federaalka uu ku dhisan yahay Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynihii maamulada federaalka saddexaad Shariif Xasan Sheekh Axmed ayaa tegey iyo madaxweynihii hore galmudug ayaa tegey isaguna intaasu meeshay tagtay oo nidaamkii federaalka ahaa ka wakiil ahayd ama ku soo shaqaysay waxay la tahay ixtiraaf dame ilaahay mooyee aadamay ka sugayaan inay jiraan waxaan mudanayaal inii sheegayaa anigu halkaas kumaanaan soo arag dad mucaarada oo mucaarad loo haysto waxaa joogay laba nin oo cidi ka dhex hadlayso oo meelo kale laga soo taabtay oo tegi waayey doorashadii meesheedii oo misna fidmo u jooga inay qaabilaan oo waftigii tegay meesha oo inta hadda inii sheegay ka mid ahaa isku xil saar inay la hadlaana diiday intaasu waa xogaalnimo waxaan meediyadu akhriyayso oo ay leeyihiin xabaa halkaa mucaarada xabaa jiira xabaa keera khudbooyinkii waad dhegaysateen baan u malaynayaa 12 Oktoobar laga akhriyay meesha waxaasu ma jiraan wixii meesha ka dhaca oo fidmaha oo ka yimaada biri mas'uuliyadda lama leh cidda nimanka ka hadlayso ardooyinka ayaa ka mas'uul noqonaysa halkaas anagu waa soo ictiraafna ilaahayna ictiraaf ka haysta dowladda dhexe waxa laga doonayaa oo kaliya inay aqoonsigaas iyaduna dhinaceeda ka raacdo inay dowladihii xubinta ka ahaa dowladaha federaalka nidaamka u degsan oo shuruucda leh oo wax badan ay ka samaysmeen inay qaybteeda ay ka qaadato shirar ay u qabato dadka isugu yeerto halkan madaxweynaha Puntland markuu yimi isagaaba hordhac sameeyay oo yiri anaga kala dhex galaya oo arintaas qayb ka qaadanaya ay muxuu ahaayay arintaasna ay aqbasho annaga aqalka sarena waa imaanayna goobjoog baan ka ahaanaynaa anigoo ka mid ah anigu gudoomiye oo ahaa guddigii maamuladu waxay sheeganayeen oo aqalka sare oo galay soo ururintiisii oo dowladda delegationkii ay soo dirsatay oo nala hadlay oo aanu ku heshiinay soo bandhignay laakiin dowladda dhexe ka fuli waayey kaas annagoo miiska keenayna oo loo dhammaanayo ayad looma sinna wixii baasama cid baa iska leh wixii hagaagsanna wixii hagaajiyey baa muxuu ahaayey libteeda iska leh ilaahay baana waxa dhan wada wixii ilaahay ka dhigay noqon doonta waxaan oran lahaa halkaas intaanan ka bixin arintaas dowladda dhexe iyo dowladaha xubinta ka waxa weeye dowladda dhexe mas'uuliyaddeeda koowaad waxa weeye dalka inay israaciso isku hayso anagu diyaar baanu inahay haddaanu ama aqalka sare joogno ama maamulada dhisan hadda oo laga warhayo inay kala shaqeeyaan oo nidaamkii federaalka lagu heshiiyey dadka mararka qaarkood ka hadla oo aan dhagteeda markay ku soo dhacdo aan yaabo waxa weeye shaqooyinka waa la kala leeyahay dadku qaybo meel buu qaybta kaga jiraa nidaamkan siyaasadda dad baa loo wakiishay nidaamkan siyaasadda golayaal baa loo doortay golahana ka mid ah Puntland siyaasaddeeda waxaa ka mid ah dadkay sii doorteen oo ah hawlfulayaasha ama executive-ka ama xukuumadda ayaa siyaasadda fulinteeda ka wakiila ciddii wax tabanaysa nidaamka u degsan dalka oo dastuurkaaba ay dib ugu noqonaysa xisaabtankana waxaa ku leh golaha wakiilada ku leh dadka dibadda ka hadlaya ama culimo ha ahaadeen ama odayaal dhaqameed ha ahaadeen ama dad siyaasiyiin hore ah oo iyagu meelahaas marna aan soo gelin meelaha siyaasadda laga maamulo galayaasha dowladda aan soo gelin ha ahaadeen ama dad shaqo doona ha ahaadeen cid kastoo hadlaysa waxa weeye codkooda way leeyihiin dadku waa hadli karaa laakiin kuma hadli karaan wax burburin ah
ama meel ka dhac ka ah nidaamka dhisan oo dalka ah oo la isku raacay kama hadli karaa dad baa waxay sheeganayaan in magaalooyin kale masruufaan dad baa waxay sheeganayaan in cashuurta iyaga keliya laga qaado waxaan rabaa inaan wax yar uga noqdo wadaadadaa laga rabaa inay iyagu sameeyaan inkastoo qaybtooda hadda diiniga ah qofkii aqoontaas mid ka shisheeya oo aan xagga maadadaa wax ka lahayn waxaan la yidhaahdo loo yaqaan alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar anigu midaan dambe hadda aan sheegahayo waxaa weeye alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkarkii dawliga ahaa weeye baan sheegaya waxaa weeye nidaamka dawligaa wixii ka baxsan waa munkar ciddii rabsho ka wada dowladaha sistemka dowladdu u dhisan tahay halkan waxaa weeye laba leeyar weeye dowladdu sideedaba nidaamka federaalka waxaa weeye 3 heer weeye aqal 3 dabaqa weeye dabaqa u hooseeya oo dowladaha hoose dabaqa ku xiga oo labaadna waa maamulada Puntland oo kale iyo Jubbaland iyo ka mid yihiin labada maamul iyaga ay soo yimaada dowladda dhexe dabaqa saddexaad weeye uma soo gudbi karo midka u hooseeya dowladda hoose waxa weeye nidaam walba wali lagama heshiin wixii la isku qabtay oo laalan oo cirka jira weeye wali lagama heshiin nidaamkii cashuuraha loo qaybsan lahaa nidaamkii badroolka hadda midalan ba wasiirka hadda hilaal oo dor shalay hadlay idaacadu ka sheegayeen hawshii oo qabtay waa ugu fiicnaa laakiin wali sharcigii lama baas garin wuxuu ku dhex jiraa wuxuu ku jiraa baarlamaanadu ku jiraa baarlamaanka hoose iyo baarlamaanka sare wali dhexdooda buu wali ku jiraa ma dhamaan marka sidaa darteed isagu hadduu hay'adii la oran jiray oo shirkadii la oran jiray Shell Exxon Mobil hadduu ka soo ceshay 1 milyan iyo 700 aku mahadsan yahay hadalku raacshay ma aanu ka helay oo ahay waa la wadaagaa maamulada iyo dawladda dhexe waa la qaybsanay nidaamkii lagu heshiiyay waa loo qaybsanay markii sharcigu soo baxo waa taas waa ku fiican yahay xogaa yar baan u raacinaya waxa weeye wasiir inaga deynta leena ku leeyahay beri hore oo aan jaamacadaha dhiganayo aan fiirshay 1 bilyan 700 bay ahayd haddana 5 bilyan bay sii maraysaa 30 sano haddii ay $56 iyo 60 senti ay ahayd kirada ceelkaas weli lacagtii Amerikaanka waaga qiimaha ay joogtay 56 maanta ma joogto inflation rate-kii waa ka maqan waxaan maleeyaa inay noqon lahayd 2 bilyan ma gaadheen laakiin dhowr boqol oo milyan 20 milyan kale inay ka yaraateen bal xisaabtanka dib ugu noqo takhasuskayga weeye maaliyadda muxuu ahay finance iyo bankinga inflation rate-kii lacagtaas qiimaheedii ku darsamay iyo iyagu intay deynka ay ku leeyihiin ka masaabaxayaan iyagana interest rate-ka ina ku dalaceen kii u dhignaa adna ku dalac oo intaas dib u weydiiyo ka soo celi marka hadalkaas waa la qaybsanayaa baan ka tiraacayaa dawladda dhexe waxaa laga doonayaa inay hawshaas dalka isku soo celintiisii iyo hadda waa la kala maqan yahay waqtigu kaga dhammaan 1 sano iyo 3 bilood baa haray anaga khasaare inagu tahay waliba aniga gaar ahaan waxaan aad uga gubtoodaa ilaa 1990kii wixii aan qayb ka ahaa markasoo meel dawladda ka dhismaysay inay marka u dambeeyo darbi madax ku dhuftaan waxyaalaha ku fiican yihiin waa jiraano dawladdu waxyaalaha ay qabatay laga inkiri maayo public finance management-ga aad bay ugu fiicantahay iyo tirakoobka shaqaalaha iyo ciidamadaba aad bay ugu fiicantahay inkastoo hanti dhowrada waxa aqriyayeen wax sheegayeen hawlahaasna kullay ragga qaarkiis baa aad u qabtay anigu aan ogahay waxaan marka ka hadlayaa u soo noqonayaa intaan hadalkayga dhammayn ganacsatada iyo odayaasha ka hadlaya waxay inagu idmanayn odayaasha dhaqanka ama ha ahaadeen caaqilada isma hadda ma maqal caaqilaan maqlaayay waliba gobolka Boosaaso halkana ku hadlay waa jireen waxa weeye deegaamadiina waxa ka maqan oo xaalufka iyo biyo la'aanta iyo abaaraha iyo ceel hadaa u baahantiin iyo caafimaadka iyo hadda tuulaan bil joogayo waxaasoo dhan waa dayacan yihiin kama shaqeeyaan waxay ka shaqeeyaan kulli siyaasad baa laga wada shaqeeyaa siyaasad dad baa loo ilmaday u dhaafa idinku waxaa ka shaqeeya dadkana u soo sheega wixii markaa mas'uul ama wasaaradaha taga xildhibaanadiina u sheega madaxweynaha hadaa rabtaana ka arka laakiin waxaan shaqadiina inaan ka hadlina culimaduna kitaabkoodii ha ku ekaadeen iyo waxoodii ninkii siyaasad raba kitaabka meel hadhigo amba kitaab baan leeyahay meel buu ii yaallaa siyaasadaan akhriya muxuu ahaade kitaabkaygana waa ku noqdaa bal inuu waafaqsan yahay in kale maxaa yeelay ma rabo inaan ku kufriyo masaajidda intay iska taagaan inay dad eedeeyaan oo yidhaahdaan muxuu ahaade masaajidii weliba caanka ahaayoo sheekhyadii waddankan diinta soo baray ay caalimo ka ahaayeen oo joogi jireen in waxaa laga akhriyo inna ka aqbali maayo haddii faraha la isku fiiqfiiqo waa la wada fiiqa
أنا wadaadadan ka mid anu ma aqaan Siciid inta wadaadnimadiisu fog tahay laakiin aniga wadaadadii ma khashiisadaano wadaadadan ka mid ahayo waanan hadda maartay manhaajka iyo tuxfaha iyo akhriin mooye wadaadadan ka mid ahay waan in ku qabsanaynaa markaas taasna halkaas aan ka leeyahay ganacsatada maalinba waxaan maqlaynaa dooni baa degtay dooni hebel baa degtay war ganacsato bangiyaan halka ka furo kaak bank la laysanka siiyay waxaan kaloo siiyay bangigan muxuu ahaay dahabshiil bank waa siiyay laysanka wuu buuxiyay shuruudihii salaama bank waa jira kulli waxay naadinayaan yaa elsi naga furta yaa elsi badeecadaan maalin walba iyagu aan caynsanayn oo aan elsi loo furin iyo xoolahan la diraayo la soo celinayo maxaa inii diiday aqoontiinu xaggee jirtaa inaad elsi furataan oo contract la gashaan qofka wax u diraysaan iyo qof wax ka soo iibsanaysaan markaas caymiskii lagu daraaya doonidii degta lacagteeda waa la bixinaya xoolihii la soo celin maayo ninkii hadii la soo cesho ninkii aad u dirtay oo lacagtiisa ka haysata bangigu inay ayaa qaadanaysa ilbaxnimadu xaggee in ka marsanta anigu waxaan diyaar u ah ciddii doonaysa inaan tala siiyo tala firiya weliba shaha ana u shubaaya intay maarta ila joogaan oo aan talada siinayo anaa shaha u shubaaya 20 sano oo career banking ah oo aan laamaha export import kan soo maray waxay jaamacadayda koowaad waa muxuu ahaye waa economics and commerce tayda labaad waa public business administration banking and finance wixii kale oo soo raacana takhasusyo kale oo hadde xiriirka caalamiga ah oo international trade ku jidho weeye war baad iska qaadataan muxuu ahaye taladaas iska bilaashka ah dalkan anigu ugu deeqayaa idinku ilaalin karmaysaan dadka xolaha inii dhibta ka khasaarin xoolihii nimanka maamulaya khasaaraas lagu leeyahay hadeer baa loo qabsado taasaan anigu leeyahay intaa ka bacdi waxaa haray waxa weeye dawladda waxaan leeyahay dad baa magaceeda sheegta waa dawladda Puntland oo ku dulaaltama oo dad ugu hanjaba oo suuqa gashada in iyagu dawladda dhiseen wasiiraday sheeganayaan xildhibaanadii qaar sheeganayaan inay keeneen aniga xataa maalmahan la soo gal anu waaba aamusnaaba marka madaxweynahana waan ka arkayaa dadka caynkaasa taageeradii hadalka la gubaayay haddaan wareystay dadka gubaayay dadka caraysan bay u badnaayeen uma badnayn dadkii dhibaatadu gaadhay oo xaq u lahaa iyagu inay mudaharaad sameeyaan laakiin ay taageero gubin oo buuq sameeyaan waxa weeye dhulka nabadha loo daayo dadka wax sheeganaya dadka laga qabto haddaan dawladdu qaban annaga qabanayna geedkii timirka aan u fariisanayaa wallahi hal maalin magaala laga saaraya ما قرأت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته